السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا الميربود جوجتان waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan waa maalnimo isniin ah taariikhduna ku beegan tahay 27 bisha galada 2021 barnaamijka sheeko gaaban maanta waxa ay kuga ayaa sheeko la yaab leh oo ka dhacday magaalada Hargeysa nin ayaa waxa uu ka yimid magaalada London ee caasimadda dalka Ingiriiska waxaana u soo guur doontay magaalada Hargeysa kadib reer ayuu ninkii u tagay reerka ninka waxay ku xireen lacag $50,000 Mareykanka maadaama gabadhooda ay tahay gabar jaamacad soo dhameysay isla mar ahaantaana ah gabar dhakhtarada oo isbitaalka shaqeysa kadib waxa dhacay ninkii reerkii ayuu u keenay lacagtii faraha badneed ee $50,000 Mareykanka gabadhii aroos aad u cajaa'ib badan ayaa loogu dhigay magaalada Hargeysa kadib markii habeenkii hoteelka laga soo guuriyay gabadhii iyo ninkeedii oo la keenay hoygii ay ku aqalgalaayeen ayaa waxa dhacday arrin la yaab leh kadib markii dadkii arooska u joogay ee hambalyada iyo arooska iyo dheesha iyo baashaalka u joogay ay kala baxayn oo guryahoodii kala aadeen waxaa isku soo haray arooskii iyo aroosadii ninkii diyaasbarada ahaa ee dibadda ka yimid waxaa dhacday taariikh la yaab leh oo gabadha uu ku dhigay maysan ogeyn gabadha ninkan inuu yahay nin cuuriyaan ah habeenkii markii uu suuligii ka soo baxay isla mar ahaantaana qolkii jiifka uu soo galay ayuu ninkii waxa uu sameeyay wuxuu iska siibay lug caag ah oo artificial ah oo ugu jirtay sidoo kale wuxuu iska bixiyay gacan faalsa oo caag ahayd sidoo kale wuxuu iska siibay ilka faalsa ah oo ninkii u xirneed kadibna waxa dhacday gabadhii ayadoo dhag la qabto lahayn ayay albaabka orod ugu baxday markii ay tagtay guriga hooyadeed ayaa waxa dhacday in hooyadeed ay ku tiraado hooyo maxaa ku helay aroosad bad ahayd maxad banaan kuu soo bixiyay hooyo iska aamus warmay sidee dhahday gabadhii ayaa waxa la weydiiyay sababta gurigooda ay ugu soo baxday waxay sheegtay ninkii inuu sidii gaarigii kale boolbool loo dhigay isla mar ahaantaana lugtiina ay falsatahay gacantiina ay falsatahay ilkiina ay fals yihiin taasina waxaa sababtay cidda aan iska hubin ninka ay wax siinayaan muuqaal ahaan dhaqan ahaan diin ahaan iyo qaabka ninka uu yahay maadaama ayaguna ay ahaayeen dad sida badan qiimeeya lacagta oo kaliya sheekadaasi intaas ayay ku eg tahay daawasho wacan aad baad u mahadsantihiin tabiyaha barnaamijkan iyo soo diyaariyaha barnaamijkan waa anigoo cali maxamed muuse alcadaala